السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود يا الميل والبقى جبتان كسودو هذا 10 كيكويو تبنا 10 كان عوان كيسو حوي new words كانالك أكد أول نسيت وهيكاتش فضلا هدا كلانك أكو عصب تاي أما بيجك أكو عصب تاي وحكا عطسانا أنا كسو بيرتد لايك سارتد شير أصحابتي فاميلي أو سميسد sidoo kale hadii aad faalla ama waxa weeye waxuun qabtid cabashaa waxay doonaan ahaade ama aad wax noo soo jeedinaysid inaad commentiga nagula wadaagtid aad iyo aad baa u mahadsantahay casharka aan guda galno casharka maanta aan qadanna waxa la new words waa qaybtiisa labaad casharka horeeyay baa jiray oo 20 eray ahaa sheekana aan ka sameynay casharkana sidoo kale waa 15 eray sheekana waa ka sameyn doonaa hadii ay bidmo erayga ugu horeeyay waxa weeye halkan waxa fiirsaa qaybta nambarada fiiri nambarka koowaad adventure waa eray kana waa macnihiisa kana waa sentence marka adventure waa biimayn ina naftaada biimaysid waxaad ogeyn waxa ka dhalan kara ina naftaada gelisid ama haddaad intid waa og tahay laakiin ma ogid khasaara intuu leekan karo salahan kale riding a bicycle in rough road is an adventure in a bicycle riding waa wadid bicycle na waa bicycle in rough road waa wada rough waa rough road na waxa weey waa wado is an adventure waa biimayn marka riding a bicycle in rough road is an adventure waa biimayn okay erayga labaad approach waa ku dhawaansho the girl gabadhu approached her mother hooyadeed ayay ku soo dhawaatay erayga saddexaad carefully waa si taxadar leh he held the coin wuxuu xarasho madaxa ama lacagta yarka shilimaadka ee birta ka samaysan wuxuu u qabtay carefully si taxadar leh marka eraygan coin waxa la dhigi karaa lacagta birta ka samaysan ee inta badan wadankan laga isticmaalo laakiin wadamada dunida kale waa laga isticmaalaa sidoo kale xarasho madaxana waa lagu ciyaaro marka he held wuxuu u qabtay the coin xarasho madaxii carefully si taxadar leh between wuxuu ku qabtay dhexdooda finger far iyo thumb iyo sul far iyo sul dhexdooda buu si taxadar leh wuxuu ugu qabtay xarasho madaxii erayga afraad experiment waa tijaabadan waa mid cilmiyeed inta badan looma isticmaali karo tijaabooyinka kale the results of the experiment natiijooyinkii results markay s la socoto waa wax badan marka natiijooyinkii of the experiment tijaabada confinement waxa ay xaqiijiyeen ama cadeeyeen their predictions qiyaastoodii marka hore qiyaas baa la sameeyaa inta aan experimentiga ama tijaabada la sameyn waxa la tijaabinaya ayaa la sii qiyaasaa wax ka dhalan kara sidaa daraadeed baa waxa loo sameeyaa experiment si loo xaqiijiyo in waxani ay yihiin ama aragtidii la arkay inay tahay wax sax marka halkan waxa ka arkada in tijaabadii la sameeyay ay xaqiijisay wixii marka hore la sii qiyaasay okay erayga shanaad waa create waa abuurid the best way habka ugu wanaagsan to predict lagu qiyaaso the future mustaqbalka is to create it waa inaad samaysid by yourself nafsad ahaantaada waa inaad adigu gacantaada ku samaysataa si aad u ogaatid waxa ka dhalan karay hadalkan waa hadal iska xikmadaysan laakiinse wax kale ayuu ka turjumaya waxa fiican inaad si qoto dheer u sii raadisid ama waxa weeye adiguba aad ka sii fikirtid okay so erayga lixaad waa laugh waa qosol laugh qosol weeye tusaale maxaa u ah the sound codka of their laugh qosolkoodii filled wuxuu buuxiyey the room qolkii okay erayga toddobaad loud waa coddeeri weeye coddeeri the man's voice ninka codkiisu was so loud aad ayuu u dheeraa so we can all hear it kurtigayo waan maqli karnay hear waa maqlid canna waa awood allna waa soo sheegnay erayga sideedaad waa shout waa qaylo ku qaylin oo kale my mother hooyaday shouted at me waa igu qaylisay because maxaa yeelay I come home waxaan guriga imid late goor dambe xilli dambe iska wareegaysaa hooya markaas kugu qaylinaysa sababtoo ah waa qalbi wax dhalay erayga sagaalaad nervous waa naxsan weeye she is nervous waxa ay ka naxsanayd about her job interview
waraysigii shaqadeeda. Gabadhan shaqay u socotay, berri bay leedahay ama maantay leedahay, laakiin aad bay u naxsan tahay sababta wax la weydiin doono iyo in shaqada la siin doono sababa la xiriira macnaha qaabka ay su'aalaha uga jawaabto ayay ka cabsanaysaa. waxyaalo badan baa maskaxdeeda ka guuxaya. marka she is nervous, waxay ka naxsan tahay about her job interview, shaqadeeda. marka job waxaa ku bedelin kadhaa waxaad doontid. waxay ka naxsan tahay about her exam result, imtixaankeeda natiijadiisii bay ka naxsan tahay baa dhihi kadhaa. waxaad doontid baa ku bedelan kadhaa waad jeceshahay. ereyga tobnaad noise waa qaylo. noise waa qaylo. sorry, halkan waxaan ku qoray abuurid laakiinse way qaldan tahay. halkan waxaad ka dhigaysaa haddii ilaahay idmo qaylo ama buuq baa ka dhigaysaa. the loudest noise, qaylada ugu codka dheer in the world, dunida oo dhan, is the silence, waa aamusnaanta. qofku markuu aamuso runtii waa marka uu ugu fiijigan yahay. marka aamustid waa marka aad ugu fiijigan tahay. marka natiijada ka dhalanaysa aamuskaaga waa maxay? inaad wax walba la socotid, waa fiijigan tahay. tusaale haddaan kusoo qaato oo waxa weye ilaahay amar nagu siiyey. wuxuu yidhi ilaahay markii qur-aanka la akhrinayo dhegaysta. kow horta waa inaad dhegaysataan, kadibna aamusa buu yidhi ilaahay subxaana watacaala. waxaa laga yaabaa inay la inay naxariisteen. maxay tahay ujeeddada aamuska iyo laisku raaciyey dhegaysiga? marka aad wax dhegaysatid waxaa maqlaysaa qisooyinkii iyo goodigii iyo yaboohii ilaahay uu qur-aanka ku sameeyey ee aakhire uu noo ballan qaaday. sidoo kale markii aad aamustidna waxa aad shaqaynaya qalbigaaga, caqligaagaa shaqaynaya. maskaxdaada waxay ka fikiraysaa sabab, maxaa tan loo sameeyey, maxaa tan loo yiri, maxaa saa loo yiri, dadka maxaa loo halaagay, kuwaas maxaa jannada loo geliyey, kuwaan maxaa saa loo yeelay. maanta oo dhan waa fikiraysaa. qur-aankiina si fiican ayaa u fahmaysaa. kaa maxay ku yeelaysaa in naftaadu ay xasilooni dareento, aqoon badan ay ka faa'iido, meelo badan, fikiro badan ay kugu soo dhacaan. yacni waa sababta ilaahay uu saa noo leeyahay. marka qofku markuu aamuso wax walba oo gaararkiisa ka dhacaya iyo naftiisa ka dhacaya waa uu la socdaa. okay, marka saasaa loo yiri erayga the loudest noise, qaylada ugu dhawaaqa dheeri in the world, dunida oo dhan, is the silence, waa aamusnaanta. okay, erayga 11aad secret waa sir. secret waa sir. the girls, gabdhuhu, were sharing a secret, waxa ay wadaagayeen, waxay isku sheegayeen sir bay isku sheegayeen. gabdhuhu waxay isku sheegayeen sir. erayga 12aad terrible. terrible waa wax aad u xun. the way she treated him was terrible, habka ay ula dhaqantay wiilka. him macnaha qof baa laga hadlaya, nin rage. the way she treated, habka ay ula dhaqantay wiilka was terrible, aad iyo aad ayay u xumayd. aad bay u xumaysa wiilka gabadha. okay, erayga 13aad scare. scare waa cabsi. if you don't know, haddii aadan aqoon, the thing to do is not to get scared but to learn. if you don't know, haddii aadan aqoon, the thing to do, waxa aad qabatid, wixii aad qaban lahayd haddii aadan aqoon, is not to get scared, ma ahan inaad ka cabsatid, but to learn it, waa inaad baratid. haddaa cabsi bilowdid oo waxa weeye cabsida 99% waa wax aan jirin. okay, waxay ku sheegaysaa wax aan jirin, nafta kugu mataqaanaa maaweelinaysa. marka waxaa lagu aqbalaa, waa lagu dhiiradaa. dhiirash baa laga raba. erayga 14aad worse, kasii xun. waxbaa xun, wax kasii xun baa la sheegayaa markaa. this car, gaarigan. this car, gaarigan, is worse than, wuu ka xun yahay, than the other two you just showed me. labada kale, the other two, labada kale, you just showed me, hadda i tustay. haddeer buu laba gaari kusoo tusay, midka saddexaad baa u timaadeed markaasaa tiri this car is worse than the other two you just showed me. gaarigan waa kasii xun yahay, labadii gaari baa hadda isoo tustay. wanigu gaariyaal fiican tusniyo aan kaa gadano. ninka waa isku xariifinaysaa moogtahay, waxbaa ka gadanaysaa ileen. okay, erayga 15aad smell waa urin. I can smell, waxaan urin karaa the fragrance, udgoonka ama carafta of that flower. qof waxaa kusoo agmaray wata ubax, markaasaa tiri waxaan urin karaa
waan urinayaa macnaha waa urin karaa ni ubaxa aa wadatay gacanta ku wadatay macnaha udgoonkiisa. I can smell waan urin karaa the fragrance of that flower. Niyo waxaan urinayaa flowerka aa wadatay ama ubaxa aa wadatid udgoonkiisa iyo caraftiisa. casharkani maanta intaas ku egyahay. haddii eebba idmo casharka ku xiga wuxuu noqon doonaa sheekadani waxa ay qusayn doontaa haddii ilaahay idmo erayadii aan maanta baranay. waxaan ina ka rajaynayaa inaa erayadani fahantaan, qorataan, xifdidaan haddii ilaahay idmo, sida maalinta soo socota insha allah ama casharka soo socda ee kan ku xigi doona haddii ilaahay idmo aad idinku oo erayadii u baahan micnahoodii aad dusha ka haysaan oo markii aan sheekada akhrinayo aad ila socotaan wixii aan sheegayo aanan sheegin idinku inaan naftiina kula sii hadashaan haddii ilaahay idmo. waxaan ka rajaynayaa haddii aad gabagabada casharkan soo gaadhay waxna aad ka faa'iiday, fadlan like saar sababta lacag kuguma baxayso. haddii aadan kusoo biirin kanaalkana fadlan kusoo biir sababta wax badan baa ka faa'iidi doontaa haddii ilaahay idmo. dad badan oo Soomaaliyana waa gaarsiin doontaa haddii eebba idmo sababtoo ah khayrka waa la isla jeclaadaa. casharkana waxa u niyeysataan ama luqadda aad baranaysaan inaad dunida wax ugu qaban doontaan, naftiina wax ugu qaban doontaan, dalkiina wax ugu qaban doontaan, dadkiina wax ugu qaban doontaan. niyada wanaajiya, ilaahayna hana ka ajar siiyo insha allah. casharka intaasaan kusoo koobaya, hadalkii waa badiyey. kulanti dambe oo wacan, aad iyo aad baa u mahadsantihiin. wasalaamu allaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.